waxaynu maanta ka hadlaynaa mid ka mid ah caqliyadii ugu waaweynaa ee dunidan soo mara. Waa Albert Einstein. Waxa uu dhashay 1879kii, waxaana ku dhashay magaalada Ulm ee waddanka Jarmalka. Waxaa iska dhalay laba waalid oo Yuhuud ah, waxaana carruurnimadiisii ku qaatay magaalada Munich. Albert sida la ogyahay ma uusan ahayn markii uu dhashay ilmo la mid ah ilmayaasha kaleeto. madaxiisa oo aad u weynaa darteed, Albert waxa uu kadib dhacay sida carruurta la midka ah si ka duwan inuu hadlo ilaa uu 3 sano ka jirsanayay. Waxbarashadiisa haddii aynu eegno, waxaa la sheegaa inuu yaraantiisii ku dhacay xisaabta, balse arrinkaas oo noqday arrin xaqiiqada ka fog. Waxa uu ku fiicnaa xisaabta, fiisigiska, sidoo kale waxa uu baran jiray luqadaha Giriigga iyo Laatiiniga. 5 sano markii uu jiray ayaa aabihii siiyey jiheeye, taasoo ku ogaaday inay jirto awood taasoo xakameynaysa irbadda jiheeyaha. Kadib fashil ku yimi shaqada aabihii, waxa uu qoyskooda u guuray magaalada Milan ee waddanka Talyaaniga. Isagana waxa uu u ahayd fursad uu kaga baxsado iskuulka oo aad u nabcaa nidaamkiisa. Einstein waxa uu go'aansaday inuu noloshiisa hadaf u samaysto, waxaana uu joojiyey dugsigii sare ee uu ku jiray xilligaas, waxaana uu aaday waddanka Switzerland. Imtixaan ayuu ka galay macadka midowga Switzerland ee ku yaal magaalada Zurich. Waxa uu si keligiis ah isu baray fiisigiska ilaa uu imtixaanka ku guuleysto uuna qalin jabiyo sanadkii markuu ahaa 1900. Sanadkii 1903 waxa uu ka diyaariyey jaamacadda Zurich. waxa uuna ku diyaariyey dimension of particles ama masaafada qurubyada. 1905 ayuuna ka qalin jabiyey. Isla sanadka uu qalin jabiyey waxa uu qoray 4 maqaal isagoo aan cidna wax ka soo xigan ama aanu kala tashan asxaabtiisii. Maqaaladaas oo lagu tiriyo aasaaska ama buddiga fiisigiska casriga ah ama modern physics. Abaalmarinadii uu ku guuleystay Albert Einstein waxa ay dhammaantood ahaayeen sida la sheego 9 abaalmarin oo ay ugu waaweynayeen Nobel Prize in Physics iyo mid ay bixiso majalada caanka ah ee Time ee uu ku qaatay shaqsigii qarniga ama person of the century. Diintiisii haddii aynu eegno, inkasta oo la sheego inay iska dhaleen 2 qoys oo Yuhuud ah, mar la weydiiyey diinta uu ugu dhow yahay, waxa uu ku jawaabay Albert Buddhismka oo uu fikrad ahaan aaminsanaa in qof walba Ilaahay uu ka mid yahay ama uu yahay. Albert waxa uu lahaa dabeecado qariiba. Waxaa ka mid ahaa in dharkiisa oo dhan hal midab ay lahaayeen. Mar la weydiiyey sababtana, waxa uu ku jawaabay, ma rabo inaan caqligayga ku dhibo maalin walba kala doorashada dharka. Sidoo kale waxaa la sheegaa weligii inuusan gaari gadan amaba uusan xataa aqoon sida loo kaxeeyo gawaarida ama dareewalnimada. Sidoo kale waxa uu Albert Einstein caan ku ahaa inuusan xusuus fiican lahayn, ilaa heer uusan xasuusan magacyada, taariikhyada iyo nambarada taleefoonada. Ugu dambeyntii, Albert Einstein waxa uu dhintay 1955 magaalada New Jersey ee waddanka Mareykanka. Intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa. Aad baa u mahadsantihiin.